isla markaana soo saara ah kana howlgasha mid ka mid ah telefishinada dalka Hindiya waxaana lagu magacaabaa Sutaba Sigdar. warbixintii Chelsea Evening Post ayay taasi ahayd oo aan ku eegaynay geerida naxdinta leh ee Irfan Khan jilaaga caanka ah ee reer Hindiya. haddii aan markana soo haabto mid ka mid ah jaraa'idada ka soo baxa dalka UK sida jaraa'idka The Independent oo gacanteeda ku soo dhacay ayaa waxa uu wax ka qoray in 3 meelood meel ahaan dadka ku nool guryaha gaar ahaan kuwa lagu xanaaneynayay oo qaarkood dib loogala baxay xarumihii markii baarista cudurka COVID-19 laga waayay ama baaritaan rasmi ah aan la marin dib loogu celiyay aqaladii ay ka yimaadeen laga helay xanuunka coronavirus sida jiraradan ay qortay. tirakoobyadani oo la daabacay dhowaan ayaa lagu sheegay in ka badan 4500 xanaanada guryaha dalka Britain oo dhan uu saameeyay viruska iyadoo qiyaas ahaan 29% uu saameeyay 12kii bishii Maarso ee la soo dhaafay. gobolka uu sida ba'ani u saameeyay ayaa ah kan ku yaala waqooyi bari ee dalkaasi halka oo dhammaan 38% la wariyay inuu ku fiday caabuqa COVID-19 gudaha Hammersmith iyo Fulham marka la isku wada geeyo 9 ka mid ah 10kii guri oo ku yaala gobolka waqooyi bari ayaa laga soo sheegay cudurka. waa tirada ugu badan oo ku taala meel ka mid ah Birmingham halkaasoo 90 guri laga soo sheegay inuu ka dilaacay caabuqa. waxaa ku sii xiga gobolka ugu daran oo ah Leeds halkaasoo 68 uu saameeyay. warbixinta toddobaadlaha ayaa muujinaysa in xaddiga viruska uu ku fiday iyadoo uu gaaray 266 fiditaanka taasi oo ka soo bilaabatay 10kii bisha March sida jiraradan The Independent ay qortay. waxay sare u kacday ilaa 596 toddobaadkii ku sii xigay taasi oo usbuucii ka sii xigay tirada ka dhigtay 1012 ilaa laga gaaro toddobaadka xiga 22kii bisha Abriil. taasina waxay ahayd warbixintii The Independent ay ka qortay korarka cudurka caabuqa halista ah ee dunida ku cusub ee COVID-19 iyo sida uu saameeyay guud ahaan gobolada dhinaca waqooyi bari ee dalka England. maalmaha koowaad ee bilashada bisha Ramadaan ayaa siyaabo kala duwan u saameysay dadyoga ku nool dunida muslimka gaar ahaan kuwa xilliga xayiraada ay saameysay si looga hortago fiditaanka cudurka COVID-19. jaraa'idka lagu magacaabo The Arab News oo wax ka qoray ayaa waxa uu soo xiganayaa qiso laga soo xigtay qoys Sacuudiyaan ah. qisadan oo si gaar ah u taabanaysa xaaladaha kala fogaanshiyaha saameynta farxad la'aanta iyo meel ku wada afuritaanka oo ay dadyoga Sacuudiga gaar ahaan iyo guud ahaan dunida muslimka aanay si wanaagsan meel bisha soonka ugu wada qaadan xilliga afurka cabsi laga qabo cudurka COVID-19 oo ku fida dhinaca neefta iyo qufaca iyo hindhista oo ay dhaqaatiirta caalamku ay si weyn uga digeen. haddii aan markana idiin soo qabto jaraa'idka The Khaleej Times ayaa waxa uu wax ka qoray xayiraad dalka boqortooyada Sacuudiga si gaar ah uu ugu soo rogay gobolka Khatif kadib markii cudurka coronavirus la sheegay in uu si weyn ugu saameeyay gobolkaasi in Sacuudigu uu haatan ka qafiifiyay. wargeyskan The Khaleej Times ayaa sidoo kale waxa uu qoray sheekada ku saabsan cadadka dadka iyo gobolada sida weyn uu u kala saameeyay iyo kuwii ka soo kabtay ama ka badbaaday cudurkaasi. wargeyska ayaa soo qoray sawir aad u qurux badan oo ay ka muuqato lamaane xiran sanka isla markaana isticmaalaya gloveska. arrimahaasi oo ah fariin loo baahan yahay dadku in ay si weyn u isticmaalaan si cudurku
aanu ugu dhex fidin gudaha bulshada. Sacuudi Carabiya waxay u ogolaan doontaa in ay dadku soo gali karaan isla markaana ay ka bixi karaan gobolka Qatif ka bilaabata toddobaadkan. sidaasi waxa lagu qoray jiraradan oo sidoo kale baahinaysay ilo wareedyo ay ka heshay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. sheekada wargeyskan ayaa sidoo kale lagu daray in tani ay timid markii ay ka soo ifbaxday dadaal ay boqortooyada Sacuudi Carabiya ugu jirto la dagaalanka fiditaanka corona. Qatif ayaa ku taala dhinaca gobolka bari ee Sacuudi Carabiya waxaana lagu soo rogay bandow 18 bishii Maarso aynu soo dhaafnay si dadka muwaadiniinta ah looga hortago in uu cudurka coronavirus uu ku dhaco. marsii horeysay wasaaradda caafimaadka ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday 1325 kiisas cusub oo COVID-19 iyo kiisas kale oo ay ka mid yihiin 169 qof oo soo kabanayay. kiisaska ugu badan ee laga wariyay gudaha magaalada barakeysan ee Makka ayaa ah 356 waxaana sidoo kale ku sii xiga kiisaska magaalada Reer ee caasimadda dalka boqortooyada Sacuudiga oo si cagcageynaya 203 halka magaalada Madiina ay tahay 225 iyadoo ay Jiddana tahay 224. jaradda The Khaleej Times ayaa qortay iyadoo ay tani jirto in tirada guud ee xaaladaha dalka boqortooyada Sacuudiga ay haatan usugeyn ay gaarayso 22402 halka soo kabashadu ay gaarsiisan tahay 2953. dhimashada dadka caabuqa ee COVID-19 ee iyaduna gaartay 157. waxaa sidoo kale ka mid ah 5 qof oo la soo wariyay inay toddobaadkan maalintii Arbacada ay ku geeriyoodeen gudaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. taasina waxay ahayd sheekadii Khaleej Times ay ka qortay xayiraadda la qafiifiyay ee gobolka Qatif ee dalka Sacuudi Carabiya. maalmaha koowaad ee bilashada bisha Ramadaan ayaa siyaabo kala duwan u saameysay dadyoga ku nool dunida muslimka gaar ahaan kuwa xilliga xayiraadda ay saameysay si looga hortago fiditaanka cudurka COVID-19. jiraa'idka lagu magacaabo The Arab News oo wax ka qoray ayaa wuxuu soo xiganayaa qiso laga soo xigtay qoys Sacuudiyaan ah. qisadan oo si gaar ah u taabanaysa xaaladaha kala fogaanshiyaha, saameynta farxad la'aanta iyo meel ku wada afuritaanka oo ay dadyoga Sacuudiga gaar ahaan iyo guud ahaan dunida muslimka aanay si wanaagsan meel bisha soonka ugu wada qaadan xilliga afurka cabsi laga qabo cudurka COVID-19. sheekada wargeyska uu qoray ee Arab News ayaa ku bilaabatay sanad kasta Sacuudiyaanku waxay ku soo dhaweyn jireen Ramadaanka si rajo, qurux iyo ducooyin ay isugu duceynayeen dadka cibaadeysanaya guud ahaan dalka iyo dunida muslimka gabi ahaanteed ay naxariis ku oogayeen farxad la isku wada marxabeeyo iyo sadaqaad la isweedaarsado. balse wargeyskan oo sawiraya halka farxadaasi ay ka baxday ayaa qoray fiditaanka COVID-19 uu dhammaantoodba joojiyay farxadahaasi lagu arwaaxi jiray. warsidaha Arab News oo soo xiganaya hooyo uu magaceed ku soo koobay Muhammad oo degan magaalada Jidda sida wargeyskan uu qoray oo diyaarinaysa afurka qoyska maalinta soonka uu dadku ay sooman yihiin iyadoo ka fikiraysa waxyaabaha ay rabaan caruurta ee ayayada u tahay misana diyaarinaysa cabitaano kala cayna iyo raashin bisil weelal ay ka buuxaan oo kala midab ah iyadoo soo buuxisay miiska gees ilaa iyo ka gees. sanadkani inkastoo ay iyadoo karantiil ku jirtay ay la joogto guriga wiilkeeda ayay ku sii adag tahay Muhammad in ay aqbasho xaqiiqada ay ku nooshahay iyadoo markaasi sida ay sheegtay jiraradun
aanay suurtagal u ahayn inay aragto xubnaha qoyskeeda si ay hal meel ugu wada afuraan. wargeyska Arab News ayaa qoray kelmado ay ku hadaaqday islaantan Sacuudiyaanka ah ee Maxamed lagu soo koobay. waxayna ay tiri sanado badan waxaan kula afuri jiray qoyska maalintii koowaad ee bilashada soonka iyadoo ay nagu wehelinayeen miiska afurka dushii dad asxaab ah oo aad u tiro badan. mararka qaar carruurta ay ayeeyada u tahay oo haatan ah kuwa waaweynaaday una ambabaxay si ay u soo diyaariyaan waxbarashada heerka jaamacadda ee dibadaha. kulanka afurka sidii hore uma dad badna waayadan dambe, ayay tiri Maxamed oo intaasi raacisay sanadihii dhowaa ee soo maray markii ay dib ugu soo laabteen carruurta kulligood ay hal meel gurigeeda ay wada joogeen. alla farxad badnayda bay tiri, iyadoo sheegtay in arrintaasi ay ahayd arrin aad u farxad badan sida jirradan ay qortay. inkastoo ay waqti kasta ay ahayd ramadaanku mid u gaar ah, misana waxaa qalbigayga weli aan ka go'in inaan sii daawado sida dhammaan carruurtayda iyo kuwa aan ayeeyada u ahay oo meel aan ku wada afurayno oo aan wada joogno. balse sanadkan waa uu ka duwan yahay, waana mid xaaladiisu ay si xad dhaaf ah uga sii adag tahay. waxaan kama dambayntii qof kasta oo jooga halkan ee gudaha Sacuudi Carabiya oo haatan uu ka jiro cudurka fidaya ee coronavirus, sheekadaasi oo ah mid aad u xanuun badan in aanay dadku meel wada joogi karin. warbixintaasi oo ay qortay jirrada The Arab News ayaa u dambeysay barnaamijkeena wargeysyada caalamka. anigoo Maxamed Nuur Macalin ayaa halkan idinkala socodsiinayay isla markaana idin soo saaray. tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono, waa aniga iyo bahda dhinaca kaamarada ee Nasteexo Cabdijaliil iyo Muuse oo idinkiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh.